warheedaha sida gobta aan idiin salaamay sida gobta ayaan idiin salaamay sida gobta iga qaada haadiya waa hadal nin weyn dee sida gobta idiin salaamay sida gobta iga qaada kow muuqaalka hor markaad ka aragto laygta ku bood labo shaarta ku xiji saddex aidiyaha ama fikirka aad qabto qaybta commentiga nagula wadaag haddaad qosashay haddaad faraxday haddaad naxday haddaad yaabtay haddaad waana heshay haddaad waali cas heshay had waxaad heshay nala wadaag yaa maxaa afka ku haystaa gacanta iyo afka hala bakheelin soo qor waxaad rabtidoo nagula wadaag waxaan reaction ka sameynana tiktok iyo weliba nin mucjise ah oo dee dantu ciishay waxay dantu ciishay wiilo dulqaad iyo samiir lahaayo dadkuna doqon moodayaano meelahaasay heesta iga istaagtay raalli ahaada laakiin dad badan bay danta ciishay runta marka laga hadlo soomaalida boqolkiiba dhalinyartooda boqolkiiba maxaan taloo ku qiyaasaa 20 iskaga qiyaas dan baa ciishay nin walba oo duruufaysan dan baa haysa subaada maqal nin dhintayba sibuu rabay saad ugu fikiraysa berri waxaan qabo waxaan samee horumar samee nolol samee wax samee sidaad u leedahay kow dabeedna waxaa ku taalla nin dhintayba ilan sibuu rabay taas baa ku taalla waxaa marka ula jeedaa soomaalida intooda badan way iscaawiyaan keliya waxay adduunka uga dhex muuqdaanna waa iscaawintaas maanta ah nin madow ah afrikaan ah oo kenyaan ah oo baabuur igu waday baaniya wuxuu yidhi soomaali haddaad tihiin lacagta meeshaad ka keentaan sirta ayada ii sheeg wuxuu yidhi soomaali yar iyo saqiir iyo kabiir meeshaan ku arkaba lacag bay wadaan buu yidhi baniyahow lacagtan guryahan qaaligae degan tihiin baabuurtan qaaliga wadataan iyo howlahan walaalow sirta ii sheeg buu igu yidhi moogta anin madow afrikaan ah dabeedna ma afrikaan baan sirteeda u sheegi oon dhihi igaga dayo qoodha iyo xadhadaasoo ku dhumi lahaa baan u sheegi waa ninkii mii waalayn eekada marka dee waxaan ugu jawaabay sirta iyada ma rabtaa haa kow waa inaad muslim noqotaan ku yidhi soo fahmin kow waa inaad muslim noqoto ood ilaahay isku dhiibto ood aaminto ilaahay ma ogiya axad kale oo arsaaq intaa le ku siin karta inuusan jirin waa inaad aaminto laba waa qodobka labaadee waa in hooyada iyo aabbaha iyo waalidiintaada iyo weliba ehelkaaga iyo qaraabadaada sida markaasi diinta islaamku ayna fartay waa inaad ugu arxamto oo innaga waxaan ku yidhi qoyskan ka kooban ama familkan ka kooban ee abtiya adeerba leh ee ka kooban 100 qof haddii hal qof uu u dhoofo ama hal qof uu u taajiro lacag u helo dhammaantood lacagta way taajirayaan isagaasaa kaafinaya biilahayo kaa wax u dir kan wax kala dabar waxee hawlo biil u qor hebel intaa u dar hebel jeeg u saxiix isagaasaa iyo reerka meel uga soo baxaya waxaasoo dhanna waxaan ku gaarnaan ku yidhi islaamnimada oo diinta islaamka ayaa sidaasa hal iscaawiya tiri soo fahmin marka waxaa ula jeedaa ama gundhigu ay tahay soomaalidu way iscaawiyaan aad iyo aad bay isku caawiyaan run ahaantii maanta haddii aad aragto wiil isyar ciilbadahayo ama qof yarsi ah ama qof xanuunsan ama hooyada rufaysan waxaad haysaa dhiibi ma fahante waxaad hayso ayaad dhiibi taasina waa taan kaga horreyna afrikaanka ee ilaa iyo hadda ay nala yaaban yihiin maanta waxaan ku yidhi ninka isaga aad buu ila yaabay waayo wuxuu yidhi niyo waan arkay oo soomaali badan baa arkay xitaa madowga kaama yeelahayaan lacag ma hayi soomaali baa tuu ku leey niyo you are Somali ma fahante waa inaad lacagta bixisaa ku leey niyo soomaali baa tahay lacag baad haysaa waxay naga aaminsan yihiin baaqaynimadaas naga aaminsan yihiin iyo taajirnimadaas iyo yacni dhaqaalahaas naga aaminsan yihiin wax kalena maaha islaamnimadan kaga koranay iyo iimaanka iyo weliba iscaawinta aan iscaawin wadamo badan waxaa jiro islaamnala ah laakiin isma caawiyaan oo dadkooda intay muqdisho imaadaan baa halkaa qaramad looga aruuriyaaba iska dhaaf inay iyaga iscaawiyaan Soomaali fahmi marka waa in marka fahantaan waxaa marka ula jeedaa ninka meeshana waa nin oday ah xoogaa duruuf baa ka yar muuqata laakiin waa nin aad iyo aad u baahan in la garab istaago la dhaqo la hagaajiyo la nadaafiyo la nadiimiyo si kale kuma garatide waa ninka maanta horumar la gaarsiin lahaa ee noloshiisa wax laga bedeli lahaa dadkuna dad waalan bay qofkan haddii aad aragto qof xoogaa ma aragtay adigu muxuu iska yar duruufaysan qof waalan baad u malayn waliidi Soomaalida saas dhibkaas yar qabaan mooyaane haddaad tiraahdo qofkan waa baahan yahay qofkan wuxuu hayo ku siinaya marka
bal ina keenaya halka idinku badlinay commentigiina loo wadaagi doontaanay ina keena cimale yartaniyo quranka cadeeyo caynkeedan oo kale la cadaabi maye وعرض نينكي دلي لقاسي عودو وعرض نينكي دلي ما هذا لوغ عليا يا وحوري عين كذا نوكلي قرآن كعديو يا لما عذابه نوع عذابك لما عذابه ما حد كيف فهمت يعني وحالي المسلمين تمركز يذكر عن قف كان واهل الجنة إلهي باكرها لنقضي وصاداش وحي كمتها قف أهل دين كاهي ونحسن بكمتها حدي يذكر عن سيدوك قف كان وفاسق منافق أنا سيدوك عليه أيضا وحي كو حكميان باطاي المسلمين انت بدن بينكم اسكم راعان انت بدن ما بين اسكم وراعو المسلمين ما أنت تروح بين أو دين تدورها يا إلى هر إمعته وإن كان ديديك سوى البعض كوج على سوى البعض صاحب إلى سوى البعض وحين وقعد حيو وإن كوج ديده ونه حصل الله نقام كله بحس واحد جرا معه أنا قبلين دين تقوله مركو حلو جدا ها أمرنا مركو حكلا دنبي كلا ها أمرنا عين كذا أو كلا ما عذابه ها أمرنا حكلا دنبي واحد يقف مسلمين تو يذكر عن أما يكون متفقان إنه يقف كاس قف أهل الله يقف وناكسن مركا هدي قف كان أنت اللي قش شيء أهل الجنة بقويه قف إدبسن قف أخلاق سن قف عرب جابن قف ديق بدن قف هذا المعان والدين تأورون دين يعني محو هاي سيد الله فرق وقاته وحول بك دورسن حاران كدورسن وحول بك كنضيف سن هدويه هاي هدي أنت عن جماعة ماشي جوكتو حاسكر راعنا قف كأنه يهي قف أهل الجنة سمعنا نفهمين مركا أمنا وحكله مركا لكن ويلك حوجا مارت ظروفها كير مقطع أو محوها هاي ويل الله يرى اسكيرا دنت بطايش وحكي من ديكري دنت صايشي مركا سومالي ممكن كل دار مايا وحا إذا كوجو فلان دردارن يوليبا إنه حكى فهمتها وحا إذا كوجو فلان إريا ما أنت نكا ويل مدوبا نكا كليا ما كون ريكوستيجا مومباسا دجن مركا أوتكتو waxay ku leeyihiin Soomaali baan ahay lacagna ma hayi wallahi ana ka akhrisanayna hada kaama weeylayaan taxiga u yarato wuxuu kaaga bilaabi $50 iska bixi $20 ama $30 iska bixi waayo Soomaali baa tahay lacag baad haysaa soo fahmin baasha marka waxaad moodaa dhulka ka soo qodanna ahaan bay noo malayaan marka waxaa guwaabay in kugu filan ba waxaan naga aaminsan yahay Afrikaan kale naga aaminsan yihiin imadooda kale intaas aan ugu filan markaas caawinno asku tirsanaano dadka xumaanta yaan lagu taageerinaa laga celiyo Soomaaliya fahmin muuqaalka noo shargay aragtidadana commentiga nagu wadaag mahadsanid